سائلكن wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan xaaski la guursado iyadina way maseeraysaa oo hinaasaheeda cirka maraya labada arimood sida sheekh soo waafajiya maxaad gula talin lahayd sa'ilkan kale wuxuu leeyahay hadii markaan rabo inaan xaaska la guursado aan u sheego markay weydiisay xaas ma leedahay oo aan maya ku iraahdo arintaas diinta islaamku iyadana maxay ka qabtaa su'aasha ugu dambaysa aynu barnaamijka su'aalaha ku soo gabagabeynayna wuxuu leeyahay sa'ilkani sheekh waxaan rabaa haddii aan xaaskii furo oo aanu kala tagno kadibna aan doonayo inaan soo ceshado waxa la iga baahan inaan weligeedii iyo cidii mas'uulka la xiriiro mise aan cidna la xiriirin baan raajactu oran karaa sheekh maxamed su-aasha hore waxaan doonayaa inaan xaaskii la guursado waana hinaasaysaa maxaan yeelaa marka hore horta waxa xusid mudan guurka labaad faralna maaha sunnana maaha waa xaguure abaar guur maaha waa luqadii reer miyiga reerku marna wuu guuraayo abaar buu ka guuraa oo dee xoolaha kaga dhimanaya halka marna iyadoo dee uu iskaba ladan yahay meeshuna doog iska tahay ayaa la xaguuraa waxaa la yidhaahdaa halkaa kale balaan iyadana halkanna waa cosab laakiin halkaa kale cosabka ah iyadana aanu guurno ama halka roobkii baaba ku batay halkaasaa yaro qalalana aan tagno markaa waa wax kororsi guurka hore guurka labaad iyo ka saddexaad iyo afraad waxbaad soo kordhinaysa haddii aad shay soo kordhinaysana waxa mudan dee xaasilkii hore inaanu kala kicin midhihii hore ee aad haysay ubadkii iyo ooridii iyo aqalkii hore inaanu xumaanin baa muhiima sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur-aanka arrintan ka warramayo shardi buu ku xidhay shardigaasoo ah cadaalad haddii aad ka cabsataan inaa cadaalad samaysaan middiinna uun ku egaada fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida meesha haddii cabsi ay timaado mid keliya ku gaabsada muxuu qof ka cabsanayaa inuu cadaalad samayn kari waayo maalan qofku naftiisa been uma sheego marka run ahaan loogu tago ee wuu og yahay wuxuu yahay caatifadiisa dhaqaalihiisa dabeecaddiisa waxoo dhan wuu yaqaanaa marka kolka hore uu ismiisaamayaayo wuxuu leeyahay dee meeshii mar haddii la yidhi haddii cabsateen cabsi hadday timaado waa dagaale tow hawshaa ma ka bixi karaysaa maya wallahi inaan ka bixi karayn nin musaalima baa tahay oo xasaradaha ayaa waxaa kari karay dee haddaba iska daa sidaasaa horta ay tahay in loo fahmo marka isku mid maaha qofka dee xaaskiisii iyo reerkiisii hore u jooga iyo qofka aan waxbaba lahayn isku mid maaha marka waa in lagu xisaabtamaayo sidaa qur-aanku ina barayo inuu qofkani labadii reer isku wadayo kii hore aanu burburayn oonu xumaanayn ubadkii ooridii aanay kharaabayn taasi markaa waa mid runtii xusid mudan waxyaabaha markaa muhiimkaa waxaa ka mid ah dee haddii aada hawshan labaad gelayso waa inaad taqaanaa sidaad u maaraynayso sidaad u maaraynaysa aad qofkii isaga ahaa ilaan qofkan markuu hinaasayo wuu ku jecel yahay waa qof diidan in loogu yimaado qofkii uu jeclaa bal maxaad ku qancinaysaa waaye qofkani meel kale uma socde wuxuu kuugu hinaasaya adigu ku jecel yahay wuxuu ku leeyahay jacaylka aan kuu qabo ma doonayo in laygu kaa yimaado bal waaye adigu wixii aad ku qancin lahayd baa lagaa doonayaa inaanad ka tegin ee aad jeceshahay oo aad garab taagan tahay oo aad waxtar ula taagan tahay diin iyo dabeecad iyo duunyaba ta waa inaad qancisaado markaaad maslaxataa reerkaagii horena hagaajisataa taa aynu ku waaninaynaa waa taa weeye walaalaheenna qaarkood ayaa intay dhaqdhaqaaq sameeyaan xejin kari waaya markay dhamacay ku baxdo kadibna markaasuu reerkii dambe furaa ama kii horu furaa furiinkaasina waxa laga cararayo marka waxaynu leenahay sidaad isugu wadi lahayd ilaan durbaanin qaatay ilaaq dalbe bay idhaahdeen soomaalidu nin dagaal tegayaana balaankii waa inuu sii dhigaado saanadii military iyo logisticii waa inuu la diyaariyahay wuxuu ku kala dejin lahaa marka iyadoo gabadhii aynaan lahayn ninkii lagu kaco waxaa laga qaada haddana ninba xigmadiisa qof iyo xigmadii marka xigmad waa laga maarmaan reerkii hore inaanu laga dhumin inaanu naga xumaanin waa laga maarmaan waxa aad soo kordhinaysiyo wixii hore waa inaad iswaafajisaa arrinku waa talamu sharci ahaan dee waa la garanaya xukunku wuxuu yahay laakiin taladu ina weydiiyey walaalkani su-aasha
kale waxa ay ahayd ragga qaarkood baa dee fulaynimadu waxa ay ku kaliftaa wallaahi inaan waxbaba qabinba waxbaba malihiba aimada qaarkood furiin bay ku sheegaan laakiin qowlka raajixa waxa weeye inuu yiraahdo xaaskii miyaad furtay haa waan furay hadduu yidhaahdo ay ka furmaysa su-aasha kale waxa ay ahayd sidee baan xaaskii u soo ceshan karaa ma haddii aan soo ceshanayo ma in weligeedii ila joogaabaa ma inaan markhaatiyaal u sameeyaabaa ma inay xaaska la soo ceshanaya ogoshahaybaa maxaa nidaamka soo ceshiga waa su-aal runtii muhiimaddeeda leh dadka qaarkood baa iyagoon waxba soo ceshanin mooda inay wax soo ceshadeen qaarkoodna iyagoo soo ceshaday ayay weli u qabaan inaanay soo ceshanin soo ceshigu shuruuduu leeya aadaab xaaskii aad soo ceshanayso shuruudiisa waxa kow ka ah inaanay horta cadad bixin dumarka midiba siday u ciddo tirsataa mid baa dhiiga ku ciddo saddex dhiig midna 3 bilood midna uurka midiba sibay ku ciddo tirsata marka intaanay cadad bixin baad fursadda haysata shardiga labaad waxa weeye inaan dalqaduhu dhammaanin oo dee haddii dalqadihii dhammaadeen ma soo ceshan karaysid arrinta saddexaadna waxa weeye in aanay kaa iibsanin dalqadda iyo furiinka haddii furiinka ay kaa iibsato oo meherkii ay kaa dayso aduguna sidaa aad ku furtay soo ceshi ma jiro ila wuu faa'iido beelayaa khulucaas maxay wax ka iibsanaysa haddii la soo ceshanayo raali noqoshadeedunbaa dib loogu meherin karaa arrinta afraadna waxa weeye labada qof inay is arkeen ay guri galeen haddii intuu meheriyo isagoo dabadda jooga iyana gudaha joogto aanu weli la aqalgelin oo furiinuu dhaco iyagoon isaragba dee ciddaba ma jirto intaba qur-aankaasa inoogu cadcadeeyo noogu saafsaafay afartaa xaalo markaanay ahayn habkaad u soo ceshanaysaa waxa weeyaan qowl iyo ficil labadaba way ku sugnaata inaad tidhaahda xaaskayga heblaaye hebel guurkaygii horaan ku soo ceshaday qowlkaa way ku ansaxaysa culimada qayb ka midina waxay leeyihiin haddii isaga oo niyeysan inuu soo ceshado xaaskiisii oon cadad bixin galma uu sameeyo iyadana ficilkaasi wuxuu sheegayaa inuu soo ceshaday waxba laakiin shardi uma aha inuu waalidku og yahay iyo inay ruuxa dumarka ahay og tahay midna shardi maaha iyadoo aan ogeyna wuu soo ceshan karaa iyadoo oo aan markhaatiyo jirina wuu soo ceshan karaa iyadoo aan waalidkeedu ogeyna wuu soo ceshan karaa ila waa xaaskiisii mar hadduu soo ceshan karayo hadduu caawa dhinto way dhaxlaysa isaguna wuu dhaxlayaa waana tan qur-aanku yidhi kala fogaanina si meel dhow la isaga tiigsan karo marka nidaamka soo ceshigu waa caynkaa weeye wayse iska wanaagsan tahay khilaafka iyo shakigaana yaraysaa inuu ooridiisii u sheego owlaa heblaayoy waan ku soo ceshaday weliba inay isku heshiiyaan baa kasii wanaagsan si aanu karbaash ugu noqon sidoo kale inuu markhaatiyaal u sameeyaana waa sunne faral maaha waa sunne inuu ehelkeedii ogeysiiyaana waa fiicanta waxaasoo dhammi shakigii unbay ka saarayaan meesha wallahu aclam